finally targetkeenii waan gaarnay oo waxaa halkaa kaaga muuqdo in akoonka lacagta ku daray hadda ay $1 gaartay. macnaheedu waxay tahay inaan ku guuleysanay bishaan inaan mar kale sameyno 10%. عوجة الداشبورد كي نسبة وكل ماشي شن تكون يهد أنت تبغى كل شن بقول دور هذا أنا قطعي تاسع معناه إن total فائدة عن كل شيء كنت شقينا يا مقام كل هستي تبغى كل شن بقول دور كسمي حاجة شن بقول رسيد قلت تطبيقات كإن لو قصدت بقول تمارين وياها حتى أنا أسوي إن شيء في يكون قبل بقول كتر دولار وإيصال ما أنت جمعها وجدنا إن باyout كي سيال بقول $100 ay isugu gaartay ay akoonkeygii ku soo dhacday qolada soo dirtaan ay tahay Bluefix payout ay ku qoran tahay. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidoo saaxiibiyaal dhammaantiin waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan isbuuc aad u qurux badan trading ah aad ku jirtaan. muuqaalkeeni maanta wuxuu ku saabsan yahay live trading iyo anoo si toos withdraw sameynay. So muuqaalka intaan gudaha u gelin good news ayaan idin hayaa oo xagga shirkadda ah oo ah inaan hadda kadib qof allaal qofka linkigiisa iska diiwaangeliyay uu heli doono 1% bonus ah oo xagga shirkadda ugu imaanayso. macnaheedu waxay tahay meesha 5% traders-ka kale shirkadda laga rabo adiga haddii aad linkigiisa iska diiwaangeliso kaliya 4% ayaa laga rabi doonaa oo akoonka allaala akoonkii aad qaadato haddii linkigiisa iska diiwaangeliso 1% ayaa akoonka lagugu dari doonaa. macnaheedu waxay tahay akoonka $25,000 haddii aad qaadato 25kiga $250 oo extra ayaa ku raaci doonto oo dhanka linkigeygii kaaga imaan doonto kaliya waxaa laga rabi doonaa inaad sameyso $100 si targetka u gaarto. haddii akoonka 50kiga aad qaadatane waxaa ku raaci doonta ama heli doontaa ama linkigii kaa soo raaci doonaa $500. macnaheedu waxay tahay $2,000 kaliya ayaa laga rabaa si lacagtaadii aad ula baxdo. waa fursad aad iyo aad ah u fiican. waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin ka faa'iideysan doontaan fursadan. haddii shirkadda dhankeeda aad aado ma heli doonto kaliya waa wax aniga qaasi ah haddii linkiga iska diiwaangeliso ayaad forecast helaysaa. laakiin haddii shirkadda dhankeeda aad aado 5% ayaa laga rabaa sida aniga hadda aan u xamaalanayo ayaad adigana u xamaali doontaa oo faaq ayaad sameyn doontaa. taas waa good news xagga shirkadda ka imaaday oo haddii aad linkiga iska diiwaangeliso aad 1% bonus ah akoonkaagii lagugu dari doono. wixii caawinada of course waad igala soo xiriiri kartaa Telegramka ana ka caawin doono community akoonka inaad si degdeg u hesho markaad iska diiwaangeliso. so haddii muuqaalkeeni dib ugu soo laabano saaxiibayaal sida wada ogtihiin bishaan gudaheedii muuqaal kale oo hore aan ku sameeyay ayaa jiro oo withdrawalka aan ugu sheekeynayay oo aan withdrawal gaaray. waxaa u jeedin in muuqaalkii hore haddii aad daawatay ilaa weli 30kii cisho ama 30kii beri la qabtay aysan weli iga dhamaanin oo aan waxaan ku guuleysanayaa in hal bil gudaheedii aan ku sameynayo 10% haddii daqiiqadaha soo socdo uu trade-kani take profit-kii inoogu dhaco. so haddii trade-keeni aan ugu laabano waxaa u jeednaa still waxaan ku jirnaa $930. macnaheedu waxay tahay kaliya $70 ee targetka inoogu dhiman si aan withdrawalkeygii saddexaad aan ugu sameeyo. so $920 marina insha Allah wasoo laaban doonaa targetkeeni markuu ku dhaco kaliya targetkeeni 95 bib waxaa inoogu dhiman wax ka yar 10 bib. so 10kaas bib target markuu ku dhaco ayaa muuqaalkani dib soo laaban doonaa oo inta kale aan processkii kala withdrawalkii hadduu targetkii noo fududaado aan idinsi doona. A few moments later. soo laabasho wanaagsan saaxiibayaal sida u jeediin finally targetkeenii waan gaarnay oo waxaa halkaa kaaga muuqdo in akoonka lacagta ku daray hadda ay $1 gaartay. macnaheedu waxay tahay inaan ku guuleysanay bishaan inaan mar kale sameyno 10% oo xogida akoonka faa'iidada ku jirto $1 ay tahay haddii aad ugeysay $51,500 $2,500 sidaas aan ku gaarno. so trade-kan waa iska xiri doonaa qaybteenii labaad ama processkeenii labaad oo withdrawalka ayaan gudbi doonaa. so so waxaa u jeedaa akoonka haddan aan kula hadlayo lacagta ku jirta inay tahay $52,530 taasoo la micnaa ah inaan mar labaad bishaani sameeyey
10% ama aan bishaan ku guuleystay inaan 10% akoonka aan ku daro. So waxaan u gudbi doonaa processka qaybta xiga oo ah inaan withdrawalkii dashboardka aan ka dhex dalbado ama withdrawalkii aan sameeyo anoo dashboardka ka dhex dalbanayo. So withdrawalka sidiisaba ilaa 3 process ayaa la maraa. Processka koowaad aad marayso waxay tahay ugu horreyn inaad akoonkii 5%kii aad ku darto $2,500 ama $2,250 aad akoonkii ku darto. haddii aad intiisa diiwaangelintiisa kuu sheegay 4% keliya ayaa lagaa rabi doonaa. So akoonkii markaad ku darta kadib waxaa lagaa rabaa inaad qaybta withdrawalka imaado. Withdrawalka markaad imaado oo aad dalbato, markii withdrawalkii aad dalbato akoonkaagii ayaa lacagta laga jari doonaa. sida ugu dhaqsiyaha badan qaab automatic ay hadda ka dhigan shirkadda in isla markiiba akoonka laga jari doono. Kadib risk teamka ayaa akoonkaaga qaban doono ama teamka risk teamka. So risk teamka waxay shaqo ku leeyihiin ayaga in akoomanka ay dib u qiimeeyaan dadka targetka gaaray, fiiriyaan in wax sharci daraa isticmaaleen ama unauthorized trading activities ha lagu helo, wax kasoo horjeedo terms and conditions heshiiskii aad gashay wax kasoo horjeedo. kadib markay soo baaraan ee kuusoo fasaxaan akoonkaagii ay kugu waayaan wax dambi ah, lacagtaadii waxay kuusoo bedeli doontaa equity-ga ama qaybta hadda 00 ayay imaan doontaa. So equity-ga markaad tagto ee lacagta ku imaado kadib qaybta payout-ka ayaa tagi doontaa oo payout-ki markaad tagto kadib perfect money-gaagii lacagtii ayaa dalba doontaa oo sidaas lacagta kuusoo gaari doontaa. So sida ujeedin hadda taariikhda waa 23 oo maalin jimcaha ayaa target gaari. macnaheedu waxay tahay inaan jimcahan lacagta helaynin. dadka inta yaqaan way ogtahay shirkadda waxay lacag ku bixisaa qaab by week ah ama isbuuc walba ayaa lacagta la bixiyaa. So dadka sabtida ilaa maalinta khamiista targetka soo gaaro maalinta jimcaha lacagtooda way helayaan. dadka jimcaha targetka gaarna jimcaha kale ayay lacagtooda helayaan. So hadda marka waxaa ujeedaa akoonka 52,000 inay tahay lacagta hadda tan ku jirto aan kula hadlaayo 52,530 inay tahay. So marka waxaan rajeynaa in lacagtan la iiga jaro. waxaan tagi doonaa qaybta withdrawalka ayaan ku dhufanayaa oo waxaan dalbanayaa withdrawalkii. fariinta qolada C-Trader-ka ayadana waa tan haddii aan click siino oo waxaa ujeedaa in C-Trader-ka ay soo direen. waxaa ujeedaa akoonkeygina meesha ku qoran lacagta laga jarana ay tahay $2,500. So intani waa inta hadda withdrawalka aan ka sameyneyni. So akoonkaagii hadda tradyadaada iyo waxaaga waa sii wadi kartaa, wax problem ma laha. oo waxaan sugaynaa inta lacagta qaybta equity la iga soo dhigayo shahaadadeeda labaadna la iga soo diray. So muuqaalkan waa sii wadi doonaa min 23 bisha waaye almost 7 bil kadib ay lacagtii soo dhex doontaa maadaama maalin jimcaha targetka aa gaaray. So muuqaalkan waqti badan aan ay galay fadlan isku day at least inaad dadaalkeena inoo muujiso aad noo subscribe garayso oo like saarto muuqaalkan. waa maasanta waa isku soo laaban doonaa 5 hours later. isku soo naqsho wanaagsan saaxiibayaal. 5 biri kadib ama 5 maalmood kadib ayay risk teamka akoonkeygii dib igu soo fasaxeen lacagteydii oo qaybta equity-gii keeneen. waxaa meeshaan ugu jeedaa in taariikhda maanta 28 September ay tahay xilliga emailkan ii soo dhacay ay tahay 4 saacadood ka hor iyaguna sheegaya in lacagteedii hadda risk teamka ay kasoo dhammaadeen in akoonkeygii dib u fiiriyaan eegaan inaan ruliskii ishaarada shirkadii buriyey kadibna ay lacagteeda ii soo fasaxeen. sida halkan hadda ugu jeedin meeshaan waxaa ku qoran in withdrawalkeygii qaybta equity-ga la ii keenay ee equity-ga diyaar ku tahay. hadda wixii ka dambeeyana profitkeygii aan dalba karo si maalinta jimcaha la igu soo diro. uu laaban dashboardkeygii waxaa ujeedaa dashboardkeygii in isbedel uu ka dhacay meeshii 5,000 ahayd in $7,500 hadda ay noqotay. taasoo macnaheedu tahay in total faa'iidadii aan bluefields intaan kala shaqeynaya ama qoomankooda haystay $7,500 ka sameeyey. waxaa meeshaan ku qoran sidoo kale total payout-ka in $2,896 uu yahay. haddana aan sugayo in sheerkeygii $2,250 oo ii soo dhaco maalinta jimcaha. so marka waxaa tagi doonaa qaybta payout-ka ayaan tagi doonaa. waxaan isku dayi doonaa xogta meesha ku qoran iyo payout-keygii inaan idinka qariyo si aysan public xogteeda ugu noqonin. waxaan rabaa inaan lacagta ku dalbado qaab perfect money ahaan inay lacagta igu soo gaarto ayaan u baahannahay. so marka meeshaan waxaa ujeedinaa xogta iyo qaabkaad rabto deal bangi wey. aniga waxaan rabaa inaan perfect money kula baxo xogtaan aan buuxina. so sidoo kale lacagta meeshaan iga taal waxaa ujeedaa $2,250 inay tahay. waxaan rabaa $2,250 sidoo kale inaan ka bixiyo
lacag subscription laha oo laga rabo next month waxaan rabaa inaan akoonka kusii tirigareeyo oo aan faa'iido kale kasii sameeyo. marka waxaan leeyahay pay your next subscription macnaheedu waxay tahay $1,250 ayaa waxaa laga jari doonaa $228 ee bisha soo socoto akoonka aan isticmaali doono. faa'iidadeeda ayaa leeyahay iyaga jarta lacagtan oo qaybteeda kale inta ii dhiman ii soo dira. marka waxaan filaa $950 lacag $950 camal lacag inay ii soo dhici doonto. marka inta waxa waaye waxaad gelinaysaa lacagta qaybta inta ii kugu soo dhacayso waxaad ii soo aadayso sheerkeyga $955 oo waxaa almost ka jartaa $228 iyo 1.9% oo ah lacagta perfect money ahaan commissionka ay kugu soo dirayaan. so qaybta hoose waxaa kaloo ii yaalo waxaa rabaa inaan perfect money ka doorto xogtaan perfect money akoonkeyga ma rabo inaan halkan kusoo tusiyo, ma rabo inaan halkan kasoo muujiyo security awgeeda maadaama wax walba ay dhici karaan oo meeshan meel social media ay tahay. marka waa qarin doonaa markaan dhamay kadib ayaan soo socodsiin doonaa. A few moments later. laabasho wanaagsan saaxiibayaal, ugu dambeyn lacagteydii perfect moneygii way soo dhacday. sida ujeedin dashboardkii waxaa ugu jeedaa in isbedel uu ku dhacay meeshii withdrawalka ay ku qornid hadda 7,500 ay gaartay meeshii overall 5,000 yeeday. sidoo kale waxaa ujeedaa lacagteedii equity-ga in laga bixiyey oo qaybtii payout-ka ee imaaday oo payout-keyga haddii uu gaaray $3,767. taasoo micno ah mar haddii total payout-ka lacagta imaaday in lacagtii lagu soo diray. so lacagtii way soo gaartay. haddaa perfect moneygeyga isaba fiirino waxaa ujeedaa $1,783 inay ku jirto. haddii aan fiirino lacagta xilligii perfect moneygeygii ee kusoo dhacday waxaa arkaysaa in taariikhda 3 October ay aheeday. oo waxaa ujeednaa haddii aad bartaan ila fiiriso oo ishaada si fiican u fiiriso waxaan ujeednaa in payout-kii $931 ay isugu gaartay ee akoonkeygii kusoo dhacday. qolada soo dirtan ay tahay Bluefix payout ay ku qoran tahay. taariikhda haddaa inta fiiriso waxay lacagtan akoonkeygii kusoo dhacday 4 markay aheeday oo ah 3 bisha October ay aheeday. almost 6 marina 3 bil ayaa kasoo wareegtay markii aan payout-keygii ay perfect money igu soo dhacday. so marka waxaa ujeedaa wax walba si live ku siiyey anoo toos tirigareenayo akoonka lacagta laga jaraayo payout-keygii soo gaarayo dhammaan processka iyo wixii aan maray xafila adikana inaad mari doontaan oo si fudud hadda kadib ay idin noqon doonto. ugu dambeyn muuqaalkeenii ujeedkeenii ama ujeedadii weyneed aa kalihiin waan soo gaarnay oo ah qaybtii ugu dambeysay ilaa payout igu soo dhacayso inaa idin tusiyo. muuqaalkan kale inta kulmin waxaa idin tagaa sidaas salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.